weli ma maqashay oraahda ah god sireed ha qodin haddaad qodana ha dheereen ku dhici doontaana moogide. haddaba saynu u fahanno oraahda Soomaaliyeed waxaynu ka sheekaynaynaa qisa cajiib ah oo la yaab badan. hadda ka hor waxa dhacday in ayaa mar walba waxa uu dili jiray xaaskiisa. sidii uu u dili jiray ayaa maalinkii dambe si kadis ah ku dhimatay isaga oo garaacaya. ninkii waxuu ka baqay in gabadhu reerkooda ay ogaadaan oo ay ka argoostaan isna nafta dhaafiyaan. waxa uu ogaaday nin magaalada joogay oo ahaa nin dhagar badan. ninkii ayuu u tegay waxauna ku yiri xaaskayga ayaan dilay waxaan ka baqayaa haddii la ogaado in la dilo waxaan ka rabaa talo oo waxaad ii sheegtaa wadada aan ku badbaadi karo. ninkii dhagarta badnaa ayaa yiri waxba ha walwalin oo ha cabsan xal waa la hayaa. dilaagii xaaskiisa dilay oo faraxsan ayaa yiri maxay tahay xalka. dhagar badanihii ayaa yiri waxaad fadhiisantaa iridda hore ee gurigaaga. halkaas waxaad ku sugtaa nin dhalinyaro ah in uu soo maro. kadib inta aad u yeerto waxaad ku tiraahdaa marti ayaad ii tahay oo waan ku martiqaadayaa hore u soo dhaaf oo guriga soo gal. kadib markii uu soo galo guriga intii aad gadaal ka marta dil oo nafta dhaafi kadibna agdhig meydka xaaskaaga. intaas kadib waxaad u yeertaa reerka xaaskaaga oo waxaad ku tiraahdaa dhibkan ayaa dhacay oo ninkani waxaan ugu yimaaday isaga iyo xaaskayga oo qol wada jiifaa. kadib intii aan iscelin waayay ayaan labadaba dilay oo nafta dhaafiyay. reerkii gabadha dhalay ayaa dhahay waayahay gabadhana degdeg aynu u duugno oo aynu aasna ceebtan ma sii sheegi karnee. sidii baa la sameeyey oo gabadhii waa la aasay reerkiina waa ay iska laabteen. markii la gaaray galabkii ayaa waxaa yimid ninkii dhagarta badnaa isla markaana ahaa ninkii talooyinka siinayay. waxa uuna ku yiri haye arrimihii ma ku hagaageen. dilaagii ayaa yiri haa si fiican bay igu hagaagtay oo gabadhii reerkooda ayaa aasteen laakiin ninkii aan dilay meydkiisa ayaa weli guriga ii dhex yaala. ninkii dhagarta badnaa ayaa yiri bal itus ninka aad dishay meydkiisa aan arkay. markii uu fiiriyey waa wiilkiisii oo ahaa midka kaliya uu daddanka qabay. yaab iyo amakaag iyo naxdin. kadib ninkii dhagarta badnaa ayaa isla markiiba go'aansaday in uu ka aarsado oo isla markiiba meeshii ayuu ku dilay isagoo aanan filaynayn dilaaga. dadkii dariska ahaa ayaa isku soo baxay waxayna qabteen ninkii dhagarta badnaa wayna ogaadeen arrintii. isna waa uu qirtay waxa uu yiri aniga ayaa ka dambeeyay arrinkan si aan ninkan u badbaadiyo ayaan dilkan u sameeyay. laakiin halkii wiil aan dunida ka lahaa ee indhaha ii ahaa ayuu dilay anna sidaas ayaan uga aarsaday. reerkii gabadhii la dilay oo meesha goobjoog ka ahaa ayaa waxa ay dileen ninkii dhagarlowga ahaa. goobtii sidaasi waxaa nafta ku waayay 4 ruux. nuxurka sheekadeenna god sireed ha qodin haddaad qodana ha dheereen ku dhici doontaana moogide. ninkani dhagarlowga ahi waxa uu ninka kale ku tashkiiliyey in uu qof kale oo muslim dila si uu badbaadiyo laakiin waxa uu dilay wiilkiisii oo sirtii uu maleegaya asaga ayay ku soo laabatay. waxaad naftaada la jecleen ha la jeclaanin walaalkaaga. nagu soo biir subscribe. Assalamu calaykum.